kulanti wanaagsan qodobada ugu waaweyn wararka Soomaaliya caalamka idinkugu soo gudbi doona waxa qayb ka daawadayaal xogihii ugu dambeeyay kulamada magaalada Muqdisho iyo loolanka madaxtinimo ee Soomaaliya oo meel xasaasi ah marayo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya oo maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ay ku dhawaaqeen go'aan adag oo ku saabsan doorashada madaxtinimo ee dalka haddaba kuma ay noqon doonaan musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamaysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya halkan ayaan warbixin la xiriirtay idinkugu soo gudbi doonaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo la kulma qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda Ukraine iyo Russia xoogaysta xilli haween caruur iyo dad laga daadgureeyay magaalada Mariupol ee dalkaasi qodobada iyo qodobo kale ayaynu ku faahfaahinayna wararka Somali Live Media u diyaar garooba daawadayaal markale kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galna fadlan nagala qayb qaado baahitaanka muuqaalkan adigoo baraha kale ee bulshada ku sii sheer gareynaya alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka waagaag haddii aynu ku bilowno guddiga doorashada madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya ayaa maanta bilaabaya diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Soomaaliya u taagan si musharax kasta u qaata aqoonsiga rasmiga ee uga qaybgalaya doorashada ka dhacaysa 15 bisha May 2022 aynu ku guda jirno musharaxiinta ayaa dhankooda wada abaabul xoogan iyo xodxodasho ay la galayaan baarlamaanka maadaama qof kasta oo musharaxa laga doonayo inuu buuxiyo xaashi ama warqad ay ku xusan yihiin magacyada aqoonsiga iyo saxiixa 20 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya guddiga ayaa diyaariyay goobta lagu diiwaan gelinayo musharaxiinta si loo hubiyo shuruudaha horyaal musharaxa ka hor intuusan qaadan shahaadada muujinaysa inuu u gudbay isku diyaarinta hadal jeedinta doorashada madaxweynaha tobnaad shuruudaha ayay shaaciyeen guddiga laga doonayo waxayna ka kooban yihiin 9 qodob oo ugu weynteen musharax kasta laga doonayo lacag dhan $400,000 lana faray inay soo buuxiyaan dhammaanba 9 shuruudood ee habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Soomaaliya u taagan ugu dambeyntii guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa faray musharaxiinta inay soo dhameystiraan dhammaanba shuruudaha laga doonayo waxaa si xawliya u socoto ololaha doorashada musharaxtinimo ee Soomaaliya ee la filayo inay dhacdo bishan gudaheed iyadoo saadaal kala duwan laga bixinayo musharaxa ugu cadcad ololaha doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa inta badanba ka socota baraha bulshada sida Facebook waxaana ku soo beeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan oo shaki la gelinayo inuu xilka mar kale ku guuleysto asaga musharaxiinta la shaaciyay xilka madaxtinimo u taagan badi ayaa ah kuwa hore xilal u soo qabtay iyo kuwa haatan ku cusub saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana la saadaalinayaa in wareegga labaad ay iskula soo gudbi karaan musharaxiintan kow Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne hore xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laba Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya saddex Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha haatan xilka baneynayo afar Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland shan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ahna xildhibaan aan dhicin oo ka mid ah baarlamaanka federaalka lix Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wasiir hore xildhibaan golaha shacabka toddobo Daahir Maxamuud Geelle wasiir hore iyo safiir sideed Cabdulqaadir Cali Cusuble musharaxiintan dad badan oo arrimaha siyaasadda ka falaqoodaha ayaa ku tirinaya in shanta ugu sarreyso ay yihiin kuwa ugu horeeya ee tartan adag dhex mari doono lama oga shakhsiga ay guusha raaci doonto si cadna looma saadaalin karo balse doorasho adag ayaa la filayaa inay dhacdo marka la gaaro 15 bisha May aynu ku guda jirno oo muddo kooban naga xigaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimo ee federaalka ee Soomaaliya ee maanta Muqdisho ka bilaabatay ayaana ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo Muqdisho kulamo kala duwan dhinacyada siyaasadda ay ku yeelanayaan musharaxiinta madaxtinimo iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya 48 saacina weydaaratay gudoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale Sheekh Aadan Madoobe ayaa la kulma qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka iyo ergeyga gaarka ee qaramada Madoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa horay dhammaanba saraakiisha ciidamada iyo dhinacyada kale ee doorashada saameynta ku leh ugu baaqay inay ka amar qaataan asaga isla markaana inta marxaladda adag ee dalka laga saarayo madaxweynena loo dooranayo wixii ku soo kordhay asaga xukuumaya isla markaana ra'iisul wasaare Roble iyo Farmaajo sheegeen awood ay ka wareegtay kadib markii loo dhaariyay ama lagu wareejiyay xilka gudoonka golaha shacabka muddo badan ayay dib u noqotay doorashada Soomaaliya ama dib u dhacyo weyn hareeyeen waxaana muuqata haatan rajo wanaagsan ee ku aadan in waqti kooban lagu soo gabagabay doono
guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee isku dhafka ah xildhibaanada labada aqal ayaana sheegay in laga doonayo in doorashada la dedejiyo islamarkaana musharaxiinta u hoggaansamaan qodobada ay soo saarayaan. xogaha qaar ayna helayna ayaa sheegaya in musharaxiinta haatan qaarkood ay ku maqan yihiin dalalka Turkiga, Imaaraadka, Qatar, Kenya iyo dalal kale kuwaasoo haatan olole xoogan ka wadaya sidii ay dhaqaale ugu heli lahaayeen. musharaxiin badan ayaana maanta qorshuhu yahay inay iska diiwaan geliyaan guddiga doorashooyinka ee abaabulka doorashada wado maadaama muddo kooban lagu soo gabagabay doono isdiiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Soomaaliya u tartamayso. markaana siyaabo kala duwan ayaa qaybo ka mid ah ururka Al-Shabaab lagu dilay saraakiil sarsaro oo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Gado. ciidamada Nise iyo Duufaan ayaa howlgallo qorsheysan oo ka sameeyeen gobolka Gado waxay ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay aasayeen milooyin dhulka lagu qariyo kuwaas oo doonaya inay wax ku yeelayaan shacabka deegaanadaas iyo sidoo kale ciidamada ka howlgalay Nise iyo Duufaan iyo xoogga dalka Soomaaliyeed isugu jira deegaano ku dhow magaalada Balad Xaawo oo ciidanka jidgooye ugu galeen. dhanka kale koonfurta gobolka Galgaduud deegaan lagu magacaabo Cada Kibir ayaa lagu dilay horjooga ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Faarax Cali Warsame oo loo yaqaan Sigane kaas oo horjoogaha deegaankaas u qaabilsanaa Al-Shabaab ahaa. dilka ninkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dhisho Shurufle waxaana fuliyo xubno ka tirsan sirdoonka Soomaaliya sida noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug. Al-Shabaab oo waayihii dambaba kordhiyo weerarada ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya ayaa haatan ciidamada dowladda waxay wadaan howlgallo qorsheysan oo dhankooda waxyeelay lagu gaarsiinayo. ugu dambeyntiina magaalada xeebta leh ee Mariupol ayaa laga daadguraynayaa haween, caruur iyo dad oo muddo bil ku go'doonsanaa kadib markii ciidamada Ruushka ay xoogga saareen inay gacanta ku dhigaan magaaladaasi. mashruucan ayaa qaramada midoobay u diyaarisay oo ka dhashay socdaalka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine taas oo fursad u noqotay boqolaal ruux oo ku dhex jiray deegaanada isku horfadhiyeen labada ciidan ee dalalka Ukraine iyo Russia. wajiga saddexaad ee dadka ku xayirnaa magaaladaas ayaana haatan loo daadguranaya dalalka dariska la si ay u helaan jawi ka duwan midka ay ku noolaayeen. saraakiil ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in fursadani ay badbaado u tahay qoysas ka walwalsanaa badqabkooda iyo sidoo kale saameynta ay ciidamada Ruushka u geysteen magaaladaasi maadaama ay gantaalo dhulka kula simeen. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa tabinta wararka Somali Live Media saaxiibayaal si share garay muuqaalka saaxiibada kala gaarsay bogganana ku soo bir YouTube-kana booqo sidoo kale warka mid lamid inta kulmi doono nabadgelyo.